waxa weeye maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday waxa isguursaday nin oday ah oo aniga ila mid ah like my age iyo gabar yar oo teen ah markay isguursadeen ayaa waxa dhacday gabadhii iyo odagii waxay dhaheen aniga adigu marka dadka joogo wax afgarada noo samee oon isku garano maalmo ka mid ah waxay leedahay okay wuxuu leeyahay gabartay aniga markaad aniga ii baahan tahay weligaa waxaad karisaa suqaar laakiin markii aad rabtid wixii kale yani habeenkii waxbaa iska dhici karee waxaa rabta kari pasta bread hilib waxaa rabta kari laakiin habeenkaad ii baahan tahay just cook suqaar sidaa daraaddeed maalmaha ka mid ah ayaa odagu wuxuu aaday shaqadii markuu aaday ayay afgarashaa jirtay iriddu soo garaacay jug hello honey how are you dadku hadda waa cusubiyad oo hadda afafka kalaa lagu hadla markaasuu yiri ilaa waa oday duqoobay isaguna gabadhu isku yareynaya buu yiri honey what is cooking today markaasay tiri yes honey I cook suqaar maanta waxaan kariyey suqaar sidaa daraaddeed habeenkaa odagu waa aruuray laakiin odag weeyeelna waa aha maalintii dambe yiri okay cook as you like baby shaqaan aadaya aniga shaqaduu aaday shaqadii markuu ka soo noqday buu sidiisii soo garaacay jug hello baby what is cooking tonight markaasay tiri waxaa karsan suqaar habeenkaasna odagu neeflow buu ahaa wuu aruuray laakiin waajibaadkiisa waa gutay laakiin neef baa ku dhacday waxaa loo yeeray baabuurta degdega laakiin ilaahay waa caymiyey sidaasuu habeenkaa odagu uu ku socday habeenkii saddexaad ayuu yiri kuwa cilmayso xalitaan lagu saaray ambulance bal maanta iriddu haddaan soo garaacay jug hello baby what is cooking tonight markaasay tiri siday ahaan jirtay waa suqaar halkaa ma soo dhaafin markaasuu yiri suqaarkaaba sullakaa la cadaab saddexdiina waa iga qabtaa intaasna kuu soo dhaafay sidaa daraaddeed ey suqaarka iska ilaasha kari pasta bread hilib waxaa rabta kari laakiin habeenkaad ii baahan tahay just cook suqaar sidaa daraaddeed maalmaha ka mid ah ayaa odagu wuxuu aaday shaqadii markuu aaday ayay afgarashaa jirtay iriddu soo garaacay jug hello honey how are you dadku hadda waa cusubiyad oo hadda afafka kalaa lagu hadla markaasuu yiri ilaa waa oday duqoobay isaguna gabadhu isku yareynaya buu yiri honey what is cooking today markaasay tiri yes honey I cook suqaar maanta waxaan kariyey suqaar sidaa daraaddeed habeenkaa odagu waa aruuray laakiin odag weeyeelna waa aha maalintii dambe yiri okay cook as you like baby shaqaan aadaya aniga shaqaduu aaday shaqadii markuu ka soo noqday buu sidiisii soo garaacay jug hello baby what is cooking tonight markaasay tiri waxaa karsan suqaar habeenkaasna odagu neeflow buu ahaa wuu aruuray laakiin waajibaadkiisa waa gutay laakiin adigu marka dadka joogo wax afgarada noo samee oon isku garano maalmo ka mid ah waxay leedahay okay wuxuu leeyahay gabartay aniga markaad aniga ii baahan tahay weligaa waxaad karisaa suqaar laakiin markii aad rabtid wixii kale yani habeenkii waxbaa iska dhici karee waxaa rabta waxa weeye maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday waxa isguursaday nin oday ah oo aniga ila mid ah like my age iyo gabar yar oo teen ah markay isguursadeen ayaa waxa dhacday gabadhii iyo odagii waxay dhaheen
aniga